Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kulamadii xiisaha lahaa ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo galabta ciyaaro xiiso leh ay ka dhaceen garoomada kala duwan ee dalka Ingiriiska. Kooxda Gunners ayaa guuldarro kala kulantay galabta kooxda Everton 18 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo aanan dhinaceeda dhulka la dhigin. Xiddiga kooxda Everton ee James Tarkowski ayaa gool madax ah oo u dhaliyay kooxdiisa Everton daqiiqadii 60aad ee qaybtii dambe ciyaarta hoggaanka ugu dhiibay kooxdiisa, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay kooxdani Everton ay ku dagaalantay in ay shabaqeeda ka ilaashato wax gool ah, sidaasna ay 1-0 kaga awood sheegato kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Kooxda Liverpool ayaa weli waxa ay dhex muquuranaysaa mowjado guuldarro ah kadib guuldaradii caawa ka soo gaartay kooxda Wolves xilli marti ay u ahayd kooxdan guusha gaadhay, waxaana tababarahan kooxda Liverpool ee Klopp uu haatan u muuqanayaa mid soo afjarmaya waayihiisii ciyaaraha ee garoonka Anfield, maadaama ay kooxdu haatan ay noqotay mid aad ugu liidata qaab ciyaareedka xilli ciyaareedkan, waxaana taasi dad badan ay qabaan inay suuragal ka dhigi karto in Klopp dhowr sano uu Anfield ka soo muuqday uu gebi ahaanba xaggaas isaga huleelo maadaama cadaadis xooggan uu saaran yahay. Kooxda Manchester United ayaa guul aad muhiim u ah ku gaartay gurigeeda kulan ay kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee Crystal Palace ay ku soo dhaweysay. Kulankan ayaa ku soo idlaaday 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Manchester United, waxaana Manchester United sidaas ay ku gashay si ku meel gaar ah kaalinta saddexaad ee dhinaca kala sarreynta ee horyaalka, xilli kooxda kaalinta afraad haatan ku jirta ee Newcastle United lagu wado in caawa ay u martido kooxda ka dhisan magaalada London ee West Ham United. Horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa haatan waxaa hogaaminaysa kooxda Arsenal oo ku hogaaminaysa 50 dhibcood, iyada oo haatan ka sarreysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City 5 dhibcood, waxaana lagu wadaa in Manchester City maalinta berita ah ay la ciyaarto kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Tottenham.